بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خليل فارح حيير وحان هلكن ku qabanaya maanta gabay la yiraahdo baaq oo daba socda gabayii Bereer uu sameeyay uriyay abwaanka cabqariga ee aragtida dheer fogaan araga saaxiibkayna Cali Khaliif oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. gabaygaas oo runtii ka hadlayay waayo badan iyo waqtiga cakiran ee ummadda ku jirto guud ahaan gaar ahaanna ninkii muwaadinka ahaa ee dhaladka ahaa halgamaaga ahaa ee dawladdeena iyo xukuumaddeena ay u dhiibtay dalka Itoobiya oo uu muddo ku dhow 24 sano kula jiray halgan xornimo doon ah. anigoo arintaas oo arkay runtii inay tahay khalad weyn oo taariikhda laga galay isla markaana banaynaya wax badan oo ka xiriirnaa dawladaha gumaystaha ah marka iyagu u tafaxaytay inay dalkan iyo dadkan ay ciribtaan isla markaana ujeedadoodu tahay sida aniga marka ay la tahay dad badan oo muwaadiniin oo Soomaaliyeed ay la qabaan in ay maaragtay hantiyaan isla markaana la wareegaan ciidda iyo dhoobada bulshada Soomaaliyeed leedahay ee ku dhaadato Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku beeray waxaan yiri gabayga baaq nageeyow abwaan buuxa oo loo bogaa tahay barakaale 101 beel hagaa tahay isir bile bugtada dhaawaca ararku baanbaantay hambalaashe beel iyo qabiil bahaya reer diiday isku biirshay isku boogadhaye wada jir boolaystay burcad mariya buga uumiyaha nabadku baaqbaaqay ku boqraya banaadir iyo xamar barada maandoojis bariidiya salaamaha ku hano ciida barakaysan balalaga xijaabiyo tixdaad baahisaan helaya bogan waaye jiifko qalbigu way balbalayaaye ballamaha qabyooba rajada beeniyo rogo ee amaanada bariga iyo cirkiya diida buuruhu ee bini aadamkii qaada yiri waanu baqayaa alla ilaahay bad buu galay ninkii loo banaan baxay inkastoo nin baariyeeyo hool laga burhaanaysto boqolaal ka hooseeyo oo baaba jiray ee niman baadidiciyaha gataabeed la soo degay himilada bidhaantay rabeen inay baktiyaan in bulshadu nacdaaba la rabay oo bilaahi ee baraali isana ugu dhacay hooshi dheerayd siyaasiga bilaash haytahee buunka tuma reerka baha qarana ciida ka badan calamo beelaysan intaasoo baliya baasa iyo 100,000 oo jaana iyo diinka been sheegatada uunka boqongooye iyo baad ku naaxda hantiyay beledkii Soomaal basaas iyo amxaar baa arlada baabasho rogay berberiya hargeysiya togdheer booramiya owdal bandarbayla boosaaso luuq bariya nuugaasha ku badbaadi waa geesigii buulashii muduga wadnihi iyo bu'dii wada jirkay bahla jiifaan bulsho yahay baha qurabaatiyo beelo wadayaale cadow ku bahoobaa jiro baaba rabe ee nafku waad bidaysay u sii baratamaysaani waa bahaladii shalay ta gala baabah ka dhiga ee barba maalin bay cunahayaan baaqigii haray ee intaad barakacaysay colaad buun u tumanayso birlafta iyo geesiga intaad boqonta goynayso birlafta iyo geesiga intaad boqonta goynayso miya calan bir laga taagayaa midab buluugla ama ay dadkaygu u bogsoon boogta kugu taal shimbirkaba haddii baa la jaro biibi kari waaye lama jaro boqnaha ruux hadduu kuu gargaar baxa ee nin walaalkii beegsanaya waa barkumataal goortii halyeygii bilnaa xabasku boobayay isagoo birjeebada ku xidhan goortii lala buubay baydhabo markii loola kacay bayna lala aaday barqa goortii laga duuliyay laga boqolsiiyay raggii xamar balweynayay ee bixiyay ee dhiibay taariikhda baalmadow ku qoraa baranay tugtii rabbi baa badbaadshaha ah aan laga badbaadayna isagana baryada iyo ducada ugu bilroonaada innagana waxay nala bannaan baratan weeyaan hooyaan wixii inaga ba'ay dani u bay hoofin waxa baaqiga ee nafdoon aynu bari taarno bulshay wada jir baa lagu hantaalibin barwaaqa ee biyihii dhaqaaqee socdaa riixi kara buura caqligii iswada biirsadaa guulo beegsade tala lagu bahoobo midaa lagu baraaraaye mar hadduu ra'yigu kaa banjaro waad bahdilantahay waa inaad dhulkiinii bishaan ood barqabataane u birmada dalkiinii ayaa baahi weyn qaba ee isbaxnaasha isku biirsha talo guusha wada baafsha hana kala boqoolina bulshooy geesi isugu bayra. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.